السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد دمانتي ميلاد جوجتان بوايد السلام يا إلهي إيدي السلامي ما أنت رمضان كريم. إلهي رمضان كغير كيسين السؤاديو وحي شرنا الله إنك حجابه فلا إذا دمانتي الله إنك حجابه سومالي ويني ميلاد جوجتان با إلهي هيدي كنا بدقليو هيدكو أمانيستو إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا خير يا خيرات الدنيا آخرة الدنيا واللوبة هي آخرتنا واللوبة هي إلهي الدنيا آخرة هينون حريصنا إنه الدم بدافع وبدكنا الله إنه هجاتيو الله إنه حفظ ميلي شوغان با وارد كان الله إنه حريصته أنتي دمتي أنت نولنا أنه إنه حريصته برضو إنه حريصته آخرية الدنيا بوبة هي إلهي هو نحرسته نغنى الله نو نحرسته انت دمتي الله نو قدب نحرسته إلهي إذن كيس بإذن الله أهلية يددك يعرورت ميل والبلد شوغن إلهي نكون بدياله يدور هذا يمصايبها الدونك وميل والبصعتنا الله إنك حجابه الله إنك حجابه إلهي إذن كيس سومالويني ميلة شوغتان بقى وحاند الله عافي مات نبت قلية تامة رزق واسعة إلهي إذن كيس إلهي نور نحرست الدنيا آخرة ما أنت وحربا إنا نكهدلو حمريتي كدعدي ما أنتي دويد كبدا ومشاي اللي قد لي ويلك اللي قد لي أيان ربا إنا وحير أنكهدلو ما أنتي إلهي وحن كبريها يا هرت وحي دبات جيستي قلو البابا أهاتي ميل والبابا أهاتي أنتي دبات جيستي إلهي سبحانه وتعالى إنه إلو وحاوي حق أسوق طبعا إلهي كبرينا كوادا مسكينتا أو مشا أو اللي دلينا وحي الدلي وحاوي قعنتي كحق درنا يدو دشي إلهي قعنتاسنا إلهي سبحانه وتعالى حق يدها كسي أقرية الدنبا حق يدها الله كسي صوبتي تا وحاوي هدي قف ظلم اللي قدلو إلهي سبحانه رالي كما أهن وحن ليه إلهي وحن كبريها هي كبداس إن حق يد إلهي صوب داميو قدرنا وما قدرنا أنا وحلي هدي بتماد دبقة وادمتي بالي قدرنا وما قدرنا أنا هدي دبقة وحلي هدي دمشق تماده دبقة وادمتي بالي هذا وحوي أمر بيديدين يا أمر بيديدين وحا قدرن دبهدي تماد دبقة وادمتي بالي إلهي وحن كبريات تذكر الحق على كسو دو إلهي بان كبرينا صوبتي تحوي هاد انت حمر كدعدي او محو هيتو ان برنامج la sameeyo oo wax la burburiyo oo adduunyo la haleeyo waxa way inta ka halaabaysa ka badan waxaas waa wixii Soomaaliya soo baabiyay waxaas waa wixii dhibaatada ina ku soo riday waxaas waa wixii muxuu hayto cadaawaha inoo abuuray in muxuu aragtaa wadamada kale ina ka arkaan inaan dad aan kala dambeyn iyo muxuu hayto wanaag lahayn inaynu nahay adduunku ina ka arkay weeye isdabayaacaas iyo halaysa ceyrsada iyo barnaamij la sameeyay iyo waadaas wixii horay magac xumada ina kugu riday weeye waxa way ninkan wax dilay oo askariga in la soo qabtay la yiraahdo la soo qabto dawladda ha xirto maxkamadana ha la saar hana loo dilo dadku dilay bas intaas ku shirnay ما هن إن الله لا سمي ما هن إن دون كل رجوم ما هن إن وورينا لا أركو إنه استبيع إنه غير استبيعنا هيو قيلنا إنه أو علينا إنه وحصنا وحوي وح شرف حمادة إنه كل ذي يدد حمادة يدل حمادة إنه كل ذي وهي الصومالية عيبنا ولا جفقادة عيب ولا جفقادة حوي مداس ومدد وش حمادة إنه صميسي ومدد دتكو إنه كقاتين إنه دد عن waxay yihiin aysan jirin Israel istabayac leeno kugu bixiyay waxa weeye ka fogaada magac xumo waa laga fogaadaa Soomaaliya magac xumo waa laga fogaadaa Ilaahay magac xumayna kuma dila aakhiriya adduun inta aad sameeynaysan oo ha noqoto baaba oo ha noqoto hooyo naxayso ama lagu xadaa ama lagu dhacaa ama lagu soo galaa ama lagu soo gabada ama laydin qarxiya ama inta ay leeyihiin inkaar intaas ay kugu filan iyo cuqubo intaas ay kugu filan dhibaatada waxa weey Soomaaliya ay maaragtaa wajiga xun loogu sameeyeen waxa weey waa isma qabato waa isma aragto waa isma waxa weey waa dad waxa weey istabayaacay oo aan miyir iyo maan midna lahayn
wax walba waxbaad ku soo qabanaysaan sababta tacliintii baa la joojiyay wixii alkulista ah iyo wixii dhibaato wadeenaha iyo waxaan alla iyo rasuul midna ka baqayn iyo kii wax qarxin lahaa iyo kii olayn lahaa iyo kii waxa weeye aan gabar u naxayn oo habar u naxayn oo oday u naxayn oo aan xishoonayn oo jeebsiibka u yimid oo intaasoo dhan baa meeshaas ka abaabulan oo ka inkaaran marka waxa weeye Soomaaliya waxaan idin leeyahay inta aad samaynaysaan inta ku hoos nool ku dhex baaba'aysa ka badan waxaan leeyahay Soomaaliya magac xumada iyo waji xumada aad horey ugu samaynay aynu iska dayno waxa weeye wixiina ka maqan qalin baa lagu kala qaataa hadal baa lagu kala qaataa waxa weeye wax walba waxay u baahan yihiin tartiib bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waji wanaagsan bay u baahan yihiin yeen laynoo arag inaynu dadkeena xamar degan inaynu nahay dad iswada dabayaaca dad aan xishoonayn dad muxuu hayto aan isqabanayn dad aan waxba fahmayn yaan laynoo malayn waxaan leeyahay haloo kaadiyo cagta loo dhigo adduunka waxa weeye qalin baa lagu kala baxaa adduunka waxa lagu kala baxaa hadal baa lagu kala baxaa maahan inaynu qaylino oo aynu seenbir qayle iyo masaakil iyo dhib iyo olole iyo wallahi waxbaan laynaynaa iyo wallahi inaan la fadhiyayn iyo inaan ku jirno waxaan leeyahay Soomaalidu ha isqabato ha is aragto waxaana inay tahay magac xumo inay waji xumo tahay in laynoo aqoonsanay dad wax ma garata inaynu nahay marka waxaan leeyahay Soomaali Ilaahay hagaajiyo qalubtooda Allah isku soo tumo Ilaahay subxaanahu waxaan ka baryahay Soomaali inay wanaaga garato inay sharafteeda soo ceshato iyo wanaageedii waxa weeye muxuu hayto ninkii qabto hadda madaxweynaha hadda dekana deedintii la rido mid kale la uu qabto wallahi kan kalena khayr u gelimayno mid walba qabto sidaasaynu olo ugu haynaynaa mid walba qabto saasaynu dagaal ugu la jiraynaa mid walba qabto anigu waxaan badhihi lahaa kan 10 sano ha loogu daro kan iyo muxuu hayto ra'iisul wasaarihiisaba 10 sano ha loogu daro sababta waxa weeye Soomaaliya waxa weeye mid aynu nirkanayno mahadinay lamaba arkaba mid aynu nirkana wanaagsan oo Allah Ilaahay sharaf leh kuwa ka horeeyay odayaal baa ka horeeyay wali ma aynu arag inaynu nirkana fiican mid walba dabaynu dabada uga dhijinayno olahaasaynu wadna qayladaasaynu wadna mid aynu dhahna kana fiican ma aynu arag marka waxa weeye Soomaaliya bal aynu cagta wadankii u dhigno aynu wadankii hagaagiisa wanaagiisa aynu ka talino cadaawa meel walba inoo kaga furan nin wadankiisa hagaagsaday oo wadankiisa dhib yar u ogolayn intaas wallahi inuusan xanjada aad calalsan sanad banaanka ku turto ogolayn ayaa dab ina ku shidahaya war ka gudba qabiil war ka gudba oday muxuu hayto ola aad inta ku jirtaan war ka gudba talaxumada aad wadankii aynu ku baabiinay war waxa leeyahay Soomaalida hay isqabato Soomaalidu hay aragto war sharafteeni iyo maamuuskeeni iyo dadnimadeeni aawo dadnimadeeni iyo sharafteeni iyo aawo ma waxaynu ku jiraynaa olole ma waxaynu ku jiraynaa dagaal ma waxaynu ku jiraynaa qabiil ma waxaynu ku jiraynaa waxaan ilaahayba raalli ka ahay ilaahayba raalli kama ahan waxa weeye inta ka dhacaysa inta hal qof sameeyo intaynu inagoo badan sameeynaa ka daran hal qof wuxuu sameeyo la soo qaban karo madaxa laga goyn karo isla markaba waxa ka daran waxaynu inagu intayna kala sameeynayno ololaha digdam waa wareeyo qabtay ceshay waxaas 30 sano ina soo baabis iyo ka badan iyo 50 sano kasii horeeyay marka waxaan leeyahay Soomaalidu aqlaha yeelato haysda muxuu hayto waraaga Ilaahay ha garansiiyo Ilaahay subxaanahu ha nuguma dilo dulmigu ma fiicna olaha iyo masaa'ibta iyo durbaantumku meel walba laga darbaantumayo la leeyahay waa lagu sugnaa waa sax weeye la dagaalamo la yeelo dagaal waxba ma taro wiil buu dilay wiil kuma dhasho reer baa ku baabaa adduunyaa ku jijabta waxba ma tarto waxaas waa wixii hore inoo soo dilay waxa leeyahay Soomaalidu aqlaha yeelato ha isgarato adduunka dagaal iyo muxuu ay tahay la islaayo waxay baabiisa maahan wallahi waxba ma tarto meesha baa ka soconaya waxaadna ku celiseen wixii aynu 50 sano ku soo jirnay qabiilkii iyo baabi iyo hoogi iyo durbaantumkii horaa looga faa'iidi lahaa wixii horos intee sano aynu ku soo jirnay dagaal iyo durbaantun aynu ku soo jirnay war durbaanki miyuusan ka dhamaanin war qabiilki miyuusan baabiin war miyay dadnimo xumada iyo wax magaranimada ayna soo waxaynu ka faa'iidnaa ayna soo fahmin waxaynu ka faa'iidnaa muxuu ahaa wiilasheena ku baabay baan ka fahmin baynu ka soo ogaanay ilmaheena gaala qaalateen ka soo ogaanay caruurteena iyo wadankeena la qaatay baan ka soo ogaanay war naga daayay Ilaahay baa idinku dhaariyay dagaal iyo mashaakil waxba ma taree dadnimadii